NLF la dagaalanta xukuumadda Ethiopia oo jooga dalka New Zealand ayaa waxa uu ka hadlay wixii u qabsoomay 30 sanadood oo jabhadaasi ay soo dagaalamaysay iyo weliba wada hadallo ay dalbatay dowladda Ethiopia. Filmoge ayaa waxa waraysi dhinacyo kala duwan oo arrimahaas ku saabsan la yeeshay isagoo jooga New Zealand. wariyahana Abubakar Maxamed Cali oo ku sugan istuudiyaha idaacadda dalsan ee Muqdisho. afayeen bal waxaad nooga warantaa halganka jabhadda wadaniga ee Ogaadeniya ee awalna la ku jirsaday 30 sano marka laga soo bilaabo 1984 bal wixii u qabsoomay sharaxaad guud naga sii. sharaxaya marka hore siyaasada iyo hawlaha hadda qiimaha ee dalsanba marka xiga halgankaas wada dheer ku soo jiray halgan dheer oo Soomaali taariikhda dhexda weeye oo shacabka Soomaalida ka wada qayb qaatay waxaa loo qabsoomay qadiyadda la dartay oo la dhibaato xuduudeed oo laba dal u dhaxaysa ahayd qadiyadda Ogaadeniya ay muuqato oo soo baxday oo dal go'an iyo dad go'an oo la gumaysto lagu halgamaya ay ka tarintoodii caalamku inuu ka daragsan yahay aasaaska iyo xiriirka qadiyadda iyo meesha ay salka ku hayso shacabkana inuu bartay qadiyaddiisii uu ku degan yahay dowladda Ethiopia inuu loodin kari layahay oo hayn kari layahay xorriyaddii inay u muuqato oo xagga maskaxda iyo nidaamka iyo hay-adaha iyo institutionada ka xorooday oo inaanu calanka naydin wadadaasaan si fiican u haynaa dad weyn baa noo qabsoomay oo markii jamhuuriyadda Soomaaliya ay jirtay taageerada aan helaynay waxyaabaha qabsoomay maanta qabsoomay. jabhadda wadaniga ee awalna waxay dabcan dagaalka hubeysan bilowday sanadka markuu 1994 gudaha wadanka waxa ka socda dagaal aad u ballaaran oo u dhaxeeya dagaalyahanada awalna iyo dhinaca kale ciidamada Ethiopia bal dagaalkaas nala wadaag halka uu marayo meel halkii uu marayaa saddexdii bari u dambeysay hadda dagaalo badan baa ka dhacay gobolka Qorraxay gobolka Soolo isla dagaalada weyn baa ka dhacay laba bay ka dhaceen maalin walba way dhacaan qaybaha kala duwan ee ciidanka xoreynta Ogaadeniya wada shacabkiiba wada inuu socdo dagaalka 24 bilowday ilaa iyo hadda guulo badan oo militari uu gaaray waxaan gaarsiinay gumaysiga Ethiopia inuu hayn kari layahay dalkii iyo dadkii Soomaalida gumaysan layahay oo Qorraxay inuu ku muquuliyo uu ku talagalay arrintaan uu soo diri lahay kan xoreyn doonaa ayaa la yidhaahdo dagaalada weyn baa dhaca waxaa la fiirshay qabiil shiraalka guriga ka soo galay Ogaadeniya inay duleysay u soo saaraan khayraadka dabiiciga ee Soomaaliyeed ee Ogaadeniya taana waa xaaraantinimaynay inuu gumaysigu ka soo dego oo uu shacabka adeego taana waa ka xaaraantinimaynay inuu militari ahaan u xaquuliyo oo dadkaas uu tirtiro taana loodan adag baa lagula jiraa waana lagaga guulaystay marka dagaalkaasi waa joogto weeye muddo 24 ilaa 25 sano si xawli ah u socdaa shacabka Soomaaliyeed oo ogyahay xaafadda adduunka midkii la fikiray oo tahay halka shacbiga oo kiiska iyo bulshada oo dhan ka qayb qaadanayso oo shacabku ka qayb qaadanayo qaybihiisa kala duwan beeraleydiisa waxaa wada qatay waayahay gudaha dalka haddii aad waxaa ka socda afayeen siyaasad ay Ethiopia ku doonayso inay khayraadka ku soo saarto dhinaca kale jabhadda awalna waa ay diideen waxaana hadda shirkad daynaysa oo doonaysa inay soo saarto shidaalka ku jira gobolka Qorraxay gaar ahaan meesha loo yaqaan Jazin kaas oo shirkadii toddobaad ka hor ay ka guurtay cabsi jirta awgeed faahfaahin naga sii. bishan horaanteedii bishii hadda tagtay bartamaheedii yaa dhaqdhaqaaq ay bilaabeen shirkadii Shiinaha ahayd ciidanka xoreynta Ogaadeniya tallaabo ka qaaday bishii Oktoobar bartamaheedii khasaare u militari oo Ethiopia soo gaaray iyo ku qalabna uu soo gaaray shirkadihii jeexday waxaa arrintan lagu kalifay inay ka guuraan maanta qalabkooda ay ka daldasheen meeshaasoo keliya ma aha waxaa kaloo la socdan ila fulaan meel yaalo gobolka Afdeera iyo gobolka Hiiraan baa inay isku dayeen iyagana tallaabooyin baa laga qaaday way ka tageen
shirkadii African Oil ee Kenya laga lahaa shirkado kale oo dibadda Malaysia dhammaantood way ka guureen soo socodkii weeyay waxaa ka wada socdaa 2012 isku dayeen inay shiraalka qodaan inta dayaxoodii jijooda hayna dagaalada way balala galay way ka dhaxay gudaha Ethiopia ku difaaceen taasi waa soo tahay marka dagaalka tareenkiisa ay muujinaysaa iyo khayraadka dalka ku jira iyo jamaaca Ethiopia iyo kartida iyo awoodda halgan ee shacabka ogaadeen iyo inay isku difaaci karo hantidiisa iyo khayraadkiisa ku difaacayo ma dhacayso in shacabka ay ka tashado asagoo ku cansado habka uu soo saarayo khayraadkiisa mooyaane iyo gudaha Ethiopia iyo heshiisyaha ay tahay khayraadkiisa maamusho waxaan ma dhacayn waxa jira warar sheegaya in wada hadallo la wado kuwaas oo lagu doonayo in lagu dhaxdhaxaadiyo ONLF iyo Ethiopia maxaa ka jira arrintaas ka ogtiin arrintaasi ma jirtay gudaha Ethiopia soo dalbaday dhowr kulan way dhaceen sanadihii la soo dhaafay oo dalka Kenya ka dhacay Kenya iyo dalal kale oo ku caawinaya dhexdhexaadinta waday iyo hay'ado kale oo caalami oo dagaalka waday arrintaas hawlina kuma socoto ma ay wali dhamaanin marka gudaha Ethiopia wuxuu yahay shacabka ogaadeen yoolka iyo xayaadkiisa meesha u socdo taasoo ka warwareegaya halganka iyo culayskiisa lagu hayn kari lahayo kalboola hadal iyo dhexdhexaadina lagu dayo leeyahay xaqiiqada waxa ay dadkaasi doonayaan lagu ka cabsanayaa oo ay ayahooda ka tashadaan kana xiriiraan si ay go'aanka shacabka Soomaaliyeed yahay ogaadeen iyo taasay og yihiin marka waa hadalkaas dalalkaas ku jira wixii ka soo baxaa waa dhaafi doonaa horaanta hadalkaaga waxaad ii sheegtay in wax badan ay ka qabsoomeen halganka ONLF oo ku aadan in caalamku ku baraarugay jiritaanka dadkaasi xorriyadda doonaya marka dhinaca kale aan fiirino waxaa jira qorshayaal ay dowladda Ethiopia ku laysay xubno ka tirsan ONLF oo ku sugnaa gudaha Kenya dhinaca kale isla xubno la tagay in ONLF ka tirsanayeen ayaa lagu afduubay dalka Kenya marka caalamka aad ka dhaadhiciseen halganka ONLF miyaanu ka mid ahayn wadamada gobolka kamid weyihiin oo dadka hadda Kenya maanta ay dhexdhexaadinayso dalal kala badan oo geeska Afrika ku yaala ay xawaalka yihiin si dowlad loo socdo oo halka dareemayaan gudaha Ethiopia waa dada qaanuun ku dhaqmay iyaguna iskula ku wada dhaqmay qaanuun dadyoga kale ee dalka laana kula dhaqmay marka dadkii wada hadalka ku jiray oo ka joogay Kenya qaar kamid ah afduubtay arrintaas inay si weliba burcadnimo ayay u fuliyeen dunidii ku jirtay hadalkana way la socotaa marka fasiraadda dowladda Ethiopia haysato bay cadaynaysaa talis dhexe ee Ethiopia maanta sida oga dhintay ninkii qatarnaha ka ahaa 20 sano haystay hoggaan isku dhexdaafsan baa ka jira xoogadiisa ayaa ka jira hada markay wada hortaneen toddoba kale oo afdu iyo assassination iyo muxuu ahaay xataa intaanaysa ayaa jirta marka iyagaas waa duqaynaya oo ka soo jeeda lugtiisa haya in madaxda oo la socdaalada ku tagtaa ama dadka ka soo kaxa gudaha Ethiopia xeryaha qaxootiga Kenya iyo Soomaaliya iyo Djibouti soo gala inay meelaha kale taageeraan dadka gudaha ogaadeen wax kaga tari haddii aan hadalkaaga sii raaciyo dhinaca kale waxaa jira siyaasadda Ethiopia inaysan hadda deganayn oo ismaandhaaf xoogan hogaamiyayaasha gudaha u dhexeeyo xubno waxa la leeyahay dowladda Ethiopia ka tirsan ayaa jira oo goostay oo meelo kala duwan oo caalamka ay iska dhiibay aragtidiina ka ONLF ahaan maxay tahay arrintaas way muuqataa sidoo kale wixii hortayada ka baxsatay waddankeeda kaliya u gashay madaxdoodii oo dhan baa galay Canada iyo Maraykanka dadkii xaqiiqa ayeen iyo dadkii dambiyada kale qaar baa carruur meelaha iska dhiibay oo cadeeyey sida dadku u laayeen iyo dadka laayeen iyo xubnihii dhiibay way kala san tahay oo kooxdii tigreega ahayd oo nabadka dhintay meesha haysatay sanadkii inuu ka wareego way ka dagaalamayaan askariga militariga dowladka isku dayaan gobollo u qaysan yihiin gobollada wasaaraha Ethiopia ma hoostayaan magaalada dhexe oo dowladda iyo wasaaradaha iyo arrimaha ay hoos yimaadaan gobollada iyo qaybaha ciidamada iyo
ismaamulada waxa lagu magacaabo beenta gobolada qaar ka jira jiidada gacanta ku haysa isaga iyo kooxaha xaalka laana maamulka qaybkooda gacanta ku hayaan dadkii doorashada ku soo bixi lahaa la isku iyo lagu heshiinayaa awood xaggan awoodeed waa ka jira oo sida Soomaaliya ma hadlaan iyagu laakiin meel halis ay maraysaa oo ay dhowrka xooga kala fadhiyaan oo kala fahmi duwan waxa soo bixi doona kasbaaysa marka waxaan u akriyaynaa dadkii Itoobiya la xalaaliyo oramada iyo amxaarada iyo koonfureed iyo dadweynaha iyo xafarta iyo benshaanka iyo kulli way inay ku awoodeen marar kala duwan hay'adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqlisaanka soo bandhigeen dhibaato weyn oo ka jirta ogadeeniya oo ay sheegayaan in tacdiyo badan Itoobiya ay u geysatay dadka halkaas ku dhaqan idinka sidee baad u aragtaan anagu diiwaan u gudbinaa hay'adaha ogadeeniya xuquuqdooda ka hadla oo Soomaaliya iyo ajnabiga waa jira waan u gudbinay jirka dad kumaan kuwa la xaqiiqay boqolaal sida la gubay kumaan kuma hanti la dhacay xaalad meel baa la gubay dad baa laga yahay xabsi ku jira dhowr kuna ruuxa dhowr toban ku dhacay xabsi lagu ogyahay dhowr kuna ruuxa laga yahay si dambeeyeen tobanaan kun baa ka qaxay ilaa iyo Maraykan iyo koonfur Afrika iyo Soomaaliya iyo geeska Afrika qaarada adduunka dhan bay ka dhaceen marka mashaqooyinkan waaweyn baa shacbiga Soomaalida ogaadeen soo gaadhay adduunkana waa u qabtay Abdulqaadir Xasan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aasha ugu dambaysa hadda halganka ONLF maxaa ku tilmaami kartaa waxaan ku tilmaami karaa inaan murtay shacabka ogaadeen inaan bislaaday ciidankiisina adkaaday halgankiisii siyaasiga ahaa guriga dibadda inuu isqabsaday shucuurtii geeska Afrikana inay ogaatay dalalkii reer galbeedka Itoobiya taageeri jiray inay ogaadeen qadiyadda ogaadeen in meel in la xalliya waxaan ahayn aan xal loogu helaynin bay soo gaadhay marka waxaa noo muuqda isbedel ka dhici doona ogaadeeniya iyo guul ay gaari doonto oo saameyn weyn ku yeelan doona geeska Afrika dadka Soomaaliyeed nafin iyo guul u noqon doona